dalka Burkina Faso waa mid astaan u noqonaya afgambiyada iyo hardanka ciidan waxaana alaaba ka dhacay isku dayo xukun marorsi ah. madaxweynaha ugu daada yar dunida Ibrahim Traoré ee dalkan afgambiga kula wareegay wuxuu la kulmayaa isku dayo dil iyo dadaalo lagu doonayo in xilka looga tuuro. xukuumadda militariga ee Burkina Faso waxay sheegtay inay fashilisay shirqool weyn oo dalka lagu gelin rabay fawdo iyo qalalaaso, waxayna tilmaamtay in maskaxda ka dambeysay shirqoolka la fashiliyay ay ku sugan tahay dalka la deriska ah Burkina Faso ee lagu magacaabo Ivory Coast par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. wasiirka amniga ayaa warbaahinta u sheegay in sirdoonka qaranka uu fashiliyay qorshe la doonayay in la fuliyo toddobaadkii la soo dhaafay. qorshahaasna ay fulin lahaayeen askar la qoray oo uu ku sheegay inay yihiin cadowga qaranka. wuxuu xusay in qorshaha dawladda lagu afgambir rabay ay abaabuleen kana dambeeyaan laba sarkaal oo ku sugan Ivory Coast kuwaas oo lagu kala magacaabo Joanie Kombore iyo Lieutenant Abdirahman Bare. dawladdu waxay sheegtay in qorshahan afgambi ay ku lug leeyihiin askar ka tirsan ciidanka oo ay ku sheegtay kuwa xiriir la leh hogaamiyaasha argagixisada. waxaana toddobaadkii hore la xiray in ka badan 10 askari oo ay ku jiraan laba sarkaal kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka shaqeynayaan qalqalgelin iyo qalalaase abuurid. dawladda Burkina Faso waxay qorshahan ku tilmaamtay mid lagu doonayay in dalka lagu geliyo xasilooni darro buuxda si beesha caalamku fursad ugu hesho faragelinta Burkina Faso. wuxuuna Traoré hore u sheegay in Ivory Coast ay noqotay xarunta lagu abaabulo qorshayaasha lagu doonayo in lagu dumiyo xasiloonida Burkina Faso. xukunka Burkina Faso waxaa haya ciidamo militari ah tan iyo markii dalku uu afgambi kula wareegay Colonel Ibrahim Traoré gaar ahaan bishii Sebtembar 2022. Traoré wuxuu sameeyay isbedelo waaweyn oo siyaasadeed, dhaqaale, amni iyo dhaqameed. wuxuuna dalka ka eriyay ciidamada Faransiiska bishii Febraayo 2023. wuxuuna tilmaamaa in dalkiisu raadinayo iskaashi labada dhinac ay guuleysanayaan oo aan hal dhinac kaliya faa'iido qabin. wuxuuna taageeray hindisaha midowga saddexda dal ee gobolka saaxilka ee loo soo gaabiyo AES kaasoo ay aasaaseen Burkina Faso, Mali iyo Niger. waxayna saddexdan dal isaga baxeen urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS. tan iyo markii uu xukunka la wareegay GDP-ga Burkina Faso wuxuu ka kacay 18.8 bilyan oo dollar asigoona gaaray ilaa 22.1 bilyan oo dollar. wuxuuna diiday deymaha IMF iyo Bangiga Adduunka isagoo sheegay in Afrika aysan u baahnayn hay'adahaas. wuxuu dhisay 2 warshad oo baastada soo saarta iyo warshad cusub oo dhanka dahabka ah si loo kordhiyo wax soo saarka gudaha. wuxuuna joojiyay dhoofinta dahabka aan la sifaynin isagoona diiradda saaray in dahabka lagu warshadeeyo gudaha dalka. ilaa 30% ayuu dhimay